Soomaalida waxay lahayn in badan faragelin shisheeye ayaa runtii waxa weeye lagu hayaa dawladda shisheeye ayaa ina kala qaybanaya dawladda shisheeye ayaa runtii waxa weeye dalkeena caqabad iyo dhibaato ku ah inaan runtii waxa weeye dalkeena uu midoobo maamul goboleedyada iyada ayaa waxa weeye kala qaybanaya maamulka gobolgoosodka dawladda shisheeye ayaa farar kulul ku haya in badan laakiin caalamka lama uusan dhageysan jirin waxaasde waxaana la lahaa dad isku luqad ah dad isku af ah dad isku diin ah maxaa isku haysataan in badan markii la isweydiiyo laakiin hadda waxaa soo baxday wixii Soomaalida ay sheegi jirtay in dalkooda faragelin lagu hayo waxaan hadda aragnay in Israa'iil ay qoonsatay Somaliland oo ay tiriday waxa weeye waa ka jaraya Soomaaliya halkaas waxaa inoo soo baxday in faragelin ba'an lagu hayay marka runtii laakiin waxa weeye waxaa nasiib ah in maanta Israa'iil oo iyadaba cid aqoonsan aysan jirin adduunyadana waa 193 dawladood boqol iyo in ka badan ma aqoonsana Israa'iil caalamka carabta ma aqoonsana dawladaha islaamka ma aqoonsana runtii waxa dhowr iyo 50 dawladood ah dawlado badan oo Afrikaan ma aqoonsana dawlado badan oo Latin America ma aqoonsana waa aragteen in dawlad waxa way apartheid la dhihi jiray oo South Africa cid aqoonsaneed ma jirin waxa way nimanka cadaanka umada dhibi jiray nimankana waxa way niman apartheid kii oo kala ah hadda ku soo haray gumaysi umad Falastiin la yiraahdo gumaysi marka dawlado badan oo runtii waxa way xornimadooda ka qaatay gumaysi waxay aaminsan yihiin inta waxa dad la gumaysanaa inaysan aqoonsan dalkaas wax gumaysanaa South Africa hadda waxa way xornimo ayaa ka dhalatay waa la aqoonsaday oo runtii waxa way ilaa iyo 90 ilaa hadda waxay ku jireen xaaladeeda aad aragteen laakiin nimankii Israa'iil ah wali cid aqoonsan mana dhul bay timid xoog bay kaga qaadatay dadka degan bay barakacisay gumaysatay marka cid aqoonsan ma jirto marka nasiib waxa ah aan tobagan u soo laabanay Somaliland bal hadda waxa waaye cid waa aqoonsatay la leeyahay runtii waxa way kala go'o Soomaaliya ka shaqeynaysa inay Israa'iil tahay cid ku raacdana mana markii UN kii isugu yimid meel walba hadda waxa waa la maraysa oo Davos meel yiraahdo oo waxa Switzerland ay geeraysa marka hore waxay ka dhisi jirtay niman waxa waaye imaarad la yiraahdo oo waxa waaye DB World iyo shirka dhici jiray Dubai iyo sida madaxweyne oo kale dawladda aqoonsiga oo kale waa shirkad ganacsi DB World shirkada waxay qabtaa ganacsigeeda cid ay doonto ku casuumaysa ama maamul goboleed ama madaxweyne waxa doonta ahaa waa shirka hadda ka dhacay Davos oo kale waa World Economic Forum ayaa la yiraahdaa madaxweynayaal dawlado iyo waxa imaanaya ganacsatada adduunka ugu waaweyn cid walba ee lagu casuumo waa imaanaysaa Israa'iil hadda waxay isku dayaysaa inay halka keento ay day waxa waaye madaxweyne ahaan baa waxa waaye aan ku casuunay ayuu meeshii ku yimid laakiin waxa waaye cid la qalda kara adduunyada hadda ma jiro iban xataa Netanyahu ayaa imaan waaye oo ka baqaya hadduu halkaas yimaado Switzerland in meesha laga ka tiinaday ee runtii waxa waaye xabsi la dhigo because Switzerland waxay ku jirtaa dalalka runtii waxa waa aad ku eedeeyay sida Canada iyo dawlado badan oo France dawlado badan ay ka mid yihiin in uu waxa waa eedeysan yahay uusan imaan karin Netanyahu marka wuxuu soo diray madaxweynuhu soo diray marka nin ama dawlad iyadaba sida u baqaysa ku asalaysan inay waxa waa umad iyo dad dhibaateeyaan ama Falastiin ama umad kale inay kala qaybiyaan Prime Ministerkoodi ayaa ka baqaya inuu ku soo dhiirado waxa waa meesha la yiraahdo Davos oo imaan waayo madaxweynuhu soo diray asaga de waa criminal dawlado badan oo ka yahay Canada ayuu ka yahay dawlada aad u fara badan ayuu ka yahay Switzerland ayuu ka yahay France ayuu ka yahay Belgium ayuu ka yahay dawlada aad u fara badan ma tigi karo halka in laga qafaashay laga xira ayuu ka baqaya ee maxkamadda Hague la geeyo marka nin sida u baqaya ayaa la waxbaan aqoonsaday Davos waa World Economic Forum waa uu tagi kara diyaarad helicopter ama waxa waaye jet waxa doonta saar wax ay ka bedelayso haba yaraatee ma jirto waxa waaye waxa uu yahay maamulkaasi waa maamul ama dawlad ama gobol ama deegaan ka tirsan Soomaaliya wax ay equationkaas ama waxa waa xisaabta ay ka bedeli karto haba yaraatee ma jirto waa wax runtii xaqiiqo ah laakiin waxa dhibaato ah in dad badan ay wali isku qancinayaan waxa waa ma taqaanaa in ay waxa waa maamul iyo dawlad la aqoonsado Israa'iil ay aqoonsato ay tahay iyadoo aan arkeen in waqooyi bari state caleemasaar ajaab loo ka dhacay maamul caalamka laga aqoonsado uu yahay idaacadaha adduunka dawladaha adduunka waxa waa ay soo bandhigayaan haddana loo furay Somali Stabilization Fund waxa la lahaa maamul jira inuu yahay taas ku cadeynaysa marka waxa waa iyadoo hadda ay soo baxday meeshii la yiraahdo Guban State haddana waxa soo baxan arkaynaa Guban State meel la yiraahdo oo runtii waxa waa dhulka awdal ah oo lughaya ilaa iyo Seyla ah oo reeraha halkaas degan ee waxa waa runtii ku dhawaaqeen maanta ay ku dhawaaqeen marka waxa waa haddana ay soo socoto awdal State marka waxa ku soo haray maxay tahay waa Sambuusk saddex geeski uu waxa waa ninkii Carabtii Koomediyaanka ay sheegayeen oo lahayn Sambuus State waa Berbera iyo Hargeysa iyo Burco waa triangle waa Sambuus State marka saddex magaalo caalamkii dawladdu ma ka dhigi karaa waxa waa Israa'iil waa maya Berbera iyay xoog ku isticmaali karaan waa maya sovereignty iyo territorial integrity of Somalia ay ku jirtaa marka waa khiyaari runtii waxa waa waxyaalaha dadka isku sheegayaan marka laga soo waxa waa reality-ga waa imaanaysa
iyadoo haddaan aragnay ilaa iyo dhowr iyo konton dowladood in waxaway baan laga saaray cabdiraxmaan ciro oo runtii waxba uusan dushooda mari karin xataa iska daa wax kale diyaarad toos ay ka qaadee waddanka uu ka qaaday Ethiopia ee flight toos u geynaysa waddanku uu rabo haddii Switzerland uu ka dego Finland passport ayuu haystaa waa uu tegi karaa diyaarad flight toos oo imaarad ayaa ka baxda oo waxaa baxda mid Ethiopian ah marka waa uu tegi karaa laakiin dal Arbeed Oman ma dul mari karo Jordan ma dul mari karo Sacuudiga ma dul mari karo Yemen iska badaa hadda xadkii wajaal ayaa fiisa la isweydiinaya wajaal ayaa fiisa la isweydiinaya awalda waxaad iskaga soo galluq oo hadda Ethiopia waxay ku soo rogtay fiisa iyo fiisa ma wadata haddaad passport ajnabi wadatid